السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعد فتاة أحمد جامع يوتيوب كداوانا يسان وعد فتاة عيلتري ولا ليل كسودو هذا مقال كان عصب مقال كان إن شاء الله وحنا وهذا لدونا قصة عجيب قصة أديقو هذا دميسين فضلا هكا بيحن هدي هذا دميسين فضلا وحن كاعوسنا إن شيء جريسيت سي تذكر قارئ يقوم سقاطا وقصة هذا وقصة عجيب ولي وحي تاوانيسا دمرك إيه تاوانيسا دمرك إني توس وتاوانيسا waayo adduunku waxa uu qof jazaarad qofka inuu xaasid noqdo qofka inuu micnaha uu noqdo qof aanan mahsanid aan qof dhigi karinba qisadan insha Allah sidatan ay ku bilaawnaysaa in hadaad ugu cusub tahay waxaan ka cusubnaa inaad subscribe-ka ii saartid like-ta aad ku qabatid gambaleelkan aad sii furtid like-ta dhiirgelin qofka u tahay fadlan like iska saar daawo kurba marba aad daawanaysid in إن شاء الله قصة أيام قد قلنا قصة سيدتنا يكون بلاوتي قصة وحي إهد حافظنا وحي إهد حافظ ميدل كلاس كان تاجرنا معهن فقيرنا معهن هذا حد بإهد لكن قوس أيام كتشري حافظنا ودقنا أو وحبا عن هسنين لكن مركا قروا ود التماديد إيه مقال كود مركا فيرست سديس كان أيام وقت تاجر سنبا حافظنا نينكا وحبا موسن هسنين إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. anyway ninka subaxii markuu baxay tawakkalta ayuu ku bixi jiray gurigiisa galabta markuu soo laabanayna laba bac oo raashin qudaar iyo ayu nooc cunto xitaa dadka wax haysta aan keensan karin ayuu gurigiisa keeni jiray. anyway naagta albaabkay ku sugaysaa waxay leedahay warniyo wax hadda keentay maxay ahaayeen war sidaan maxay ahayd war wax arka gurigaas alaabta la keenay waxba kama jiraan guridu ay tagtay malaan laakiin ninkay ku niijibin jirtay waxay oran jirtay diyuus ayaa tahay dullo ayaa tahay wax ma qabanaysid waxa keenaysid malahan ma shaqeynaysid hadala aan loo adkeysan karin ay ku oran jirtay ninkeedii waxay noloshiisa ay socotaba ay ku socotaba gal walba ay meesha ku sugayso ay caynayso ay hadala aan loo dul qaadan karin oran jirtay waxay noloshiisa ay socota ay ku socota ninkana oo ku sabri jiray kadib waxa dhacday ninkii wuu xanuunsaday paralyzed halkan gacmihii ma shaqeynayaan sometimes waxyaabaas waxa keenay stresska ayaa keenaya mararka qaarkiis wax lagaaga baahan yahay gabarihii adiga ay daawanayo video-gaani wax lagaaga baahan yahay wax walba inaad ku waansa qaadatid qisadani waa waansa qaado wayna soo socotaa weli kowna ma joogto. anyway wax lagaaga baahan yahay ninkaaga wax yar iyo wax weyn baa tuu ku keena ku raali ahaw alxamdulillah على كل حال الحمد لله مركو نينكاغو سبح شقاد aadayo usii duceey anyway ninkii sirir ayuu ku aruuray isbitaal ayuu galay naagtii meel ay joogtay garan weysay waayo waxay sugaysay galab walbaba qudaar iyo cunto iyo ayu nooc cunto fruits ma macaan wax walba iskugu jiro in albaabka laga soo geliyo wixii ma jiraan ninkii sirir ayuu galay maxay sameeytay mar gabadhii waan saqaato waxay sameey jirtay ee isdhaahdo talow maxaa sameyn jirtay yaa laytani maxaa sameyn jirtay ninkaaga maxaa oran jirtay ninkaaga maanta ninkii qudaarta ku keeni jiray ninkii wax ayu nooc oo suuq laga helo ku keeni jiray isoo waxba haysan meel uu ka keenay ku keeni jiray ninkii maanta way iga jiifaa laakiin waxay sameyn jirtay albaabka inay istaagto ay dhigi jirtay ninkaygiiyo soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow gurigaaga waa kana but it was too late sister, it's too late. qofku markuu dhinto ayaad wax inaad dhahdaa ninkii saas u ahaan jiray ma aan qofku intuu nool yahay oo xayi yahay intuu san xanuunsan laga rabaa inaad runta aad ka sheegtid wuxuu yahay aad sheegtid garab aad siisid waxa haysid aasisid dhan walba inaad ka taageertid ninkaaga ayaa loo baahan yahay. ninka sirrta haduu ku aruuray gabadhi maxay sameynaysaa waxay dhahday ninkayga maadaama aan u soo galay waxaan ka balan qaadayaa in aanan ka tagin runtii sanad ay bar ee sirrta ku ilaalin jirtay isbitaalka gudihiisa galab walbana waxay fidhiisan jirtay albaabka meesha ay ku qeylin jirtay sanadooyin ka hor ay dhigi jirtay ninkayga soo gal qisadan markay qorayso runtii way soo socotaa si fiican u dhageyso kadib ninkii sanadooyin kadib sanad iyo bar
ilaah ayaa oofsaday in lilaahi wa inna ilayhi raajicuun uu dhintay ninkii allah u naxariisto habeenku uu dhimanayay naagtaasi mugdi ay u ahayd nolosheedii waxay u ahayd noloshii hore ka duwneed rafaad iyo mugdi mar xaafadaha wax loogu keenay bay ahayd waxay noloshiisa saa ku socotaa ninkii maadaama uu dhintay ninka gabadhan waxay qisadan ku qorqoraysaa qabuurka korkiisii markaasay dumarka ila dardaarmaysa waxay leedahay dumarow nimankiina waxay in keenaan ku raali ahaada raali kaga noqdo jazaarad ha noqonin sida aniga aan noqday ninkaaga stresska ha u keenin ninkaaga ka farxi wixii yar uu ku keena ku raali ahaaw waayo cid ku dhalatay malahan maalkana ujeedida dhalaalkaas ujeedid cid maanta oo la dhalatay ma jirto adigana ilaahay wuxuu kugu fiirinayaa inaad dulqaad badan tahay inaad sabar badan tahay mar walbana waxa lagaaga baahanyaa ninkaaga inaad raaliyad aad u noqotid si ilaahay labadiinaba inuu naxariisto waayo adduun inta la joogaabaa iska yarba qisadatan way aad bay u dheertahay laakiin inta muhiimada ayaan ka soo qaatay marka muhiimadan u soo qaatay waxay tahay dumarow rabbigiina ka baqa laba ninkiina oo raali u noqdo wax yar hadduu ku keena alxamdulilah wax weyn hadduu ku keena alxamdulilah say gabadhan ku dhacday iisan kugu dhicin waa 3 cunug ay haysataa waxay ballan qaaday nin kale inaysan aroosin nolosheedana maanta waxay noqotay nolol caruurteeda inay usoo xamaalato laakiin waxay ballan qaaday nin kale inaysan aroosin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu